السلام عليكم أصحاب القلقة وبيشكي مصطفى اوفيشال برنامج كينا فلانقيتا iyo ciyaaraha caawa dhanka iyo qadar ciyaaraha dhanka qadar ka socda waa ciyaarihii ugu khatarsanaa ee koobka adduunka ee la sugayay ciyaartii ugu wacneyd ee la sugayay Morocco Faransa oo ka dhacaysay dhanka qadar ciyaartaasi waa ciyaar taageeraha Morocco ay isku soo buuxiyeen ay garoonka iyagu u badnaayeen ciyaartooyda Faransiiska oo soo adkeeyay uu ka maqnaa Aubameyang iyo Rabiot ka maqnaa ciyaartaasi inkastoo ay ciyaartii wacdaro ay muujiyeen oo uu dhaliyay Thiago Hernandez ciyaartaasi 5 minute ay kaga dhaliyeen goolkii ugu horeysay inkastoo ay Morocco ay raadisay sida gool uga dhalin lahayd naadiga Faransiiska ee difaaciisu aadka u adag yahay oo Varane uu joogo iyo difaaca kale Liverpool u dheela Conte halka oo Griezmann dhaxdii Faransiiska ayaa ciyaaraha wax ka bedelay wala sugayay ciyaartu wuxuu ka bedelay uu bedelay Morocco kula dadaadiyay oo ku socda isbedel ba dhacay waxa soo galay Colomani waxbuu ka bedelay la sugaya waa wiilka Nantes laga gatay wiilka khatar waa goolka uu dhashay goolka uu dhaliyay goolka farxad halkaasi madaxweynihii baa sare u bodbooday isagiyo saaxiibadiisii gar fadhiyaba kor uga booday naadiga Faransa halkaasi way gudbeen ciyaarta finaalka u gudbeen oo taageerahooga baa caawo dhan xalay tolo dhan damaashaadka waday oo marna sooxan oo sugaya ciyaartooyga siday kor ugu qaadaan farxadooda ay la qaybsadaan ay hore u socdaan naadiga Faransiiska ee hogaaminayo Didier Deschamps asxaabteena qaaliga ee quruxda badan leh say la socotaan mar walba iyo meel kastaba like Sara subscribe Sara thank you asxaabta